xubno ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay weerar ku qaadeen hotel afrika ee magaalada muqdisho. weerarkaas oo ku bilowday qarax. intaa kadib waxaa dhacday in dagaal toos ah uu dhex maro ciidanka ammaanka Soomaaliya iyo maleeshiyada weerarka soo qaaday, taasoo ugu dambeyntii keentay in la dilo dhammaan xubnihii weerarka soo qaaday. dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay ilaa iyo hadda inta la ogyahay in weerarkaas ay ku nafwaayeen ilaa iyo 5 ruux oo ku jiro Allaha u naxariistee Generaal Maxamed Nuur Galaal oo wax badan ka soo qabtay dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa si kooban waxa uu faahfaahin uu kaga baxshay khasaaraha ka dhashay weerarka. 1 February 2020 galabtay abaara 5 galabnimo 31 January 2021 ayay argagixisadu weerar ku soo qaadeen hotel lagu magacaabo Hotel Afrika oo ku yaalay Sona kilometer 4 wadada aada garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport. hotelkaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan ayay argagixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxsho walxaha qarxa kadibna ay u isticmaaleen nafti haligayaal ugu talagalay inay qarribaan naftooda iyo nafta dadka shacabka ah goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen. saasa maanta dhacdaas ku dhacday hotelka inta ilaa hadda la xaqiijiyay waxa weeye dhimasho ilaa 12 qof ah, dhimasho ilaa 9 qof ah iyo dhaawac ilaa 12 qof ah oo dhamaantood goobta wax ku wada gaareen. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intii ku dhimatana Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo. inta dhimashada ah waxay isugu jiraan 4 argagixisadii kamid ah kii gaariga kowda hore isugu qarxiyay iyo 3 kadib nadiifinta iyo afjarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen iyo 5 qof oo kamid ah dadkii shacabka ahaa oo hotelka ku agdhawaa. walow warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyay isbitaalada magaalada lagu dabiibayo, halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa 12 dhaawaca iyo 9 qof inta ilaa hadda la xaqiijiyay. way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan, laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas. waxaan ummadda gaarsiinaynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha. warbixinta aan siinayna waa mid hordhaca ah. warbixinta oo dhammaystiran iyo wixii kale oo ku soo kordhana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa. maadaama goobta oo mugdi ah korontadiina ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax intaa ka baxsan oo gooni ah oo naga siinayno. marka waxaan idin sheegaynaa waa idin sheegay dadka weerarka soo qaaday 4 qof baan idin yiri oo qof gaariga hore uu isku qarxiyay, 3na howlgalkii dambe oo afjarka lagu soo afjaray. dadka dhaawaca ay dadka dhintana tiradoodu dhaawacu waa 12 dhimashaduna waa ilaa 9 qof inta aan xaqiijinay. marka warbixinta oo faahfaahsan dib baad ka heli doontaan, laakiin waxaan ku sheegi karaa ilaa hadda inta aan haynayna intaas tahay. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhambaal tacsiyeyna waxa uu ku yiri waxaan ehelada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeynayaa dadkii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday weerarkii argagixisadu ku qaadeen Hotel Afrika ee magaalada Muqdisho oo uu ku jiro Allah u naxariistee Generaal Maxamed Nuur Galaal oo dalka iyo dadkaba muddo dheer u soo adeegay. shacabka Soomaaliyeed Galaal ay ku xasuusan doonaan kaalintii uu ka soo qaatay difaaca dalka muddadii 50 sano ka badnayd ee uu ka mid ahaa saraakiisha udub dhaxaadka u ah ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay weerarkii argagixisadu ay ku qaadeen Hotel Afrika ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa si gaar ah waxa uu tacsi ugu diray ehelada Allah u naxariistee Generaal Maxamed Nuur Galaal oo uu sheegay inuu ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uuna xusay doorkii wanaagsanaa uu ka soo qaatay dhismaha iyo tayeynta ciidanka qalabka sida oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan. madaxweynuhu waxa uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan alle u weydiinayaa naxariistii janno dhammaan muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay weerarkii bahalnimada ahaa ee argagixisada al-shabaab ay ku fuliyeen Hotel Afrika ee magaalada Muqdisho. waxaan si gaar ah muwaadiniinta Soomaaliyeed uga tacsiyadeynayaa geerida Generaal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa rugcadayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, door wanaagsanna ka soo qaatay tayeynta iyo dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa muwaadiniinta ku dhaawacantay weerarka argagixiso ee bowga rajeeyay in uu soo caafiyo.
waxa uuna xusay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan cadawga arxanlawga ah maantana la joogo waqtigii laga xureyn lahaa guud ahaan dalkeena.